بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yiraahdaa Faarax Axmed Xuseen waxaana ujeedada iskuulka kan loo furay ay tahay baahi ka timi bulshada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah oo u baahan in ay muxuu ahaaytay waxbarashadooda kaga faa'iideystaan wadamada ay ku nool yihiin ay ma garanaysaa kaliftay inay yimaadaan dhibaatada ka soo barakicisay wadankoodii ayna u baahan yihiin inay kaga mid noqdaan ama ay kaga qayb qaataan muxuu ahaaytay nolosha wadamada ka jirta taasoo ay fure u noqonayso muxuu ahaaytay xagga luqaddu ay fure u noqonayso waayo qofku hadduu wuxuu doonayo qabanayo ama macallin ha noqdo ama muxuu ahaaytay store ha ka shaqeeyo ama muxuu ahaaytay warshad ha ka shaqeeyo de wuxuu u baahan yahay in uu waxa la yiraahdo muxuu ahaaytay luqadii uu barto si uu dadkii ula macaamilo noloshiisina uu kasbado sida aad su'aasha i weydiisay waxa weeye horta sidaan ku sheegay caam ahaan cid waliba way ka faa'iideysan kartaa oo macnaha cid alla cid doonaysa inay luqadda Ingiriisiga barato ahmiyad muxuu ahaaytay rabitaanna u haysa waana run ahaantii u fududaynaya inay luqadii horukac ka samayso laakiin waxaanu anagu ugu talagalay khaasatan markaan tacaam ahaan ka imaado waxa weeyaan dadka aan waqtiga muxuu ahaaytay iskuulada ku aadan helayn sababo duruufood awgood sida nimanka la yiraahdo truck driverska oo most of the times wadada saaran laakiin muxuu ahaa u leh access inay muxuu ahaaytay computerka muxuu ahaaytay wax ka bartaan waxa kamid ah taxi driverska oo ah in tira badan oo lambar aad u tira badan percentage aad u tira badan oo dadka muxuu ahaaytay Soomaalida kamid ah intooda badanina ay aqoon yahan ahayd markii hore luqado kale wax ku soo bartay laakiin u baahan inay fududeeyaan macnaha inay fahmaan dadkii si ay shaqadooda u fushaan waxa kamid ah workerska dadka shaqaalaha ah oo ka shaqeeya de wax meel walba ka shaqeeya nooc kasto ay kamid tahay shaqadu una baahan inay dadku muxuu ahaaytay la shaqeynayaan fahmaan inay shaqadooda muxuu ahaaytay horukac ka gaaraan oo sare loogu qaado iyadoo ma garanaysaa lagu muxuu ahaaytay promote gareynayo ways of understanding kooda iyo muxuu ahaaytay sida ay dadka ula macaamilaan ama ay shaqadooda u qabsadaan waxa kamid ah ardayda oo macnaha most of the times inta badan marxaladoodu iska tahay isku xidh laba dhaqan meeshuu ka yimi iyo meel cusub uu yimi doonayana inuu wax barto isagoon waqti ka lumin marka ardaygii isagoo iskuulkii ku jira ayuu haddana wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo caawimo barbar socota tii iskuulka oo cid garanaysa dhaqankiisii iyo siduu wax u fahmi lahaa iyo muxuu ahaaytay understandingkiisii ku base garaysan dhaqankii in uu ka helo caawimo waxa kamid ah oo aan ugu talagalay dad tira badan oo ay badan yihiin hooyooyinku oo ah mashiinka ugu horeeya oo la rabo in uu soo saaro bini aadan bulshadeena qaabeeya meesha ugu badan oo mushkiladu ka jirtaana ay tahay halka inaynay hooyooyinkii luqadii aqoon caruurtoodii iyagii isfahmi waayeen marmarka qaarkood iska caawimo ay homeworkyadooda ka caawiyaan ama muxuu ahaaytay ay si kale u caawiyaan oo nolosha ka caawiyaan marka sida awgood waxaan ugu talagalay iyagana hooyooyinka oo aan iskuulada muxuu ahaaytay ESL-ka ama English Second Language-ka loogu magacaabo ay aad inay luqadii ku bartaan sano wax ka bari jirtay iskuulaadka loo yaqaan private-ka
kuwii Soomaaliya ha noqdaan ama Kenya adiga ahaan ka macallin Faarax ahaan haddaan kaaga warramo sida aan anigu ku bilaabay macallinimada iyo baridda dugsiyada iskuulada khaaska ah oo afka qalaad loogu yeero private schoolska waa muddo aad u dheer oo ka soo bilaabatay waddankeennii markii aan anigu high schoolka aanoo dhiganayo ardaya ayaa micnaha rag aanu markaa nolosha isku dhoweyn ayaa waxay wax ka dhigi jireen luuqadaha jaamacadaha macadada la siman iyo iskuulada shakhsiyaadka ah ee private schoolska la yidhaahdo dabadeedna taasi waxay igayeysiisay inaan aniguna ka qayb qaato oo ka mid noqdo macallimiinta wax ka dhigaysay iskuulada private schoolska aniga oo ah arday markaa wax ka dhigta NTTI National Telecommunication Training Institute macadkii isgaarsiinta lagu magacaabi jiray dabadeedna waxay ii noqotay hobby in aan ku shaqeeyo macallinnimo aniga oo mar walba jecel muxuu ahaaytay ardada aan soo saaro iyo muxuu ahaaytay dadka aan wax baraa in ay horumar nolosha ka gaaraan markaa sidaa awgeed waxaa ka mid ahaa iskuulada muxuu ahaaytay aan Soomaaliya wax ka dhigay iskuulkii la odhan jiray Sablaale Private School oo ku yaalay Soddonka waxaa ka mid ah New Academic School la odhan jiray waxaa ka mid ah maxaan ku idhaahdaayey iskuulo kale oo kala duwan waxaa muxuu markaa New Advanced Academic School la odhan jiray isna waxaa kaloo aan wax ka dhigay iskuulada public schoolska ee Kenya ee xeryaha qaxootiga ku yaalay waxaan ku lahaa oo aan qayb ka ahaa macallimiinta aasaastay iskuulo markaa meesha ku yaalay oo mid ka mid ah la odhan jiray Al Arqam Academic Private School dabadeedna muddo ayaan ku dhex jiray baritaanka waxaan wax ka dhigay iskuulo ku yaalay Nairobi waxaan kaloo samayn jiray intii aan waddanka Canada joogay wax la yidhaahdo home tutoring wuxuuna inta badan ku base garaysnaa oo aan runtii aanan aad uga caawiyey arday badan oo lagu soo qoray program ka jira iskuulada muxuu ahaaytay hoose dhexe ee waddanka Canada oo ah arday uga inay la dhigtaan EBI oo ah individual education plan markaa ardayga isagoo classkiis ku jira laga soo saaraa waxa ka luma waqti badan oo classkii uu muxuu ardayda kale oo levelka ah kula qabsan lahaa uu kaga haro dibna isu dhigto oo de wax ka fudud wixii uu muxuu ahaaytay xaqa u lahaa loo dhigo inta badan dabadeedna waxaa dhacday in aan anigu arday badan oo noocaas ay ku dhacday aan soo update gareeyay dabadeed la weydiiyay sidee baad maaragtay muxuu ahaaytay ku awooday inaad ardaydan heerka soo gaarsiiso waxa aanu inta badan taargargaraynay waxa ka mid ahaa in aanu ardayga ka dhisno laba shay labada shay oo ardaygu hadii uu ka dhismo oo mar walba la qabsan karo all kinds of muxuu ahaaytay educational institutional education uu la qabsan karo taana waxaa ka mid ah qofka horta inuu luqadiisii dhisan tahay luqadiisii dhisan tahay maada kasta oo kale uu baran karaa waxaa muhiima markaa in qofka luqadiisa la dhiso communication meanskiisa la dhiso muxuu ahaaytay understanding of the language muxuu ahaaytay comprehension system kiisa la dhiso grammatical construction kiisa la dhiso marka taasi waxay geeyeysiisay inay ardaydaasi dib ugu soo noqdaan on track oo ay la qabsadaan kalaasyadii ay qeen taa marka waxay noo fududeysay in aanu ka fekerno in aanu magaranaysaa bulshooyinka Soomaaliyeed fursadda qaaliga u soo gudbino oo aanu sidii aanu awalba wadanka wax ugu bari jirnay aanu ugu barno wadamada shisheeyaha oo ay ugu baahan yihiin inay sidaas oo wax kale ugu bartaan baahidaasina ay aad ugu weyn tahay marka aan ka hadlo siyaabaha lagu barto luqadda afka Ingiriisiga runtii waxa weeye qaabka ay cid waliba wax ku barto cidda markaa iskuulada dhigata ama macadada ama jaamacadaha la siman aada
waxay ku xidhan tahay bulshadaasi sida ay systemkeeda waxbarasho u dejiso marka aad fiirisana aynu joogno waxaad moodaa systemkooda waxbarasho inaan dee bulshada tani markaa ka mid ahayn social set loogu talagalay waxbarashada tan aynu maaragtay iskuullada ugu diro caruurteena ama dadka waaweyne ay tagaan oo ay ka yara duwan tahay micnaha dhaqahaan waxaan ku idhaahaytay scope of understanding kooda ha noqoto muxuu ahaaytoy macallimiinta iyo ardayda relationka ka dhaxeeya ha noqoto waayo ardaygu iminka markuu iskuulka dhiganayo macallinkiisii magaciisiiba ugu yeeraya inagu with a respect waynu ka duwanayn waalidiintu sidoo kale marka waxa weeyaan sida ugu wanaagsan oo qofka luqadda loo bari karaa waxay ku xidhan tahay habqaabeedka loo dejiyo dhaqanka uu qofkaasi leeyahay micnaha waa ka qayb weeyaan dhaqanku waa ka qayb luqaddu waa ka qayb maxaan ku idhaahdayay fahankuna waa ka qayb weeyaan sida qofka luqadda loo bari karaa marka sidaa awgeed waxaan waxyaabaha nagu dhiirigeliyay bay ka mid ahaayeen dhaqanka dadka muxuu ahaaytoy oo aqalkoodii ama qoyskoodii lagaga dhaqmayo ayo nolosha qofku uu ku salaysan yahay noloshiisu ay ku salaysan tahay ayuu waxbarashadiisuna inay ku salaysan tahay ay wanaagsan tahay sababtu waxa weeye fahankiisu dee wuxuu scope of understandingkiisu ka imanayaa qoyska iyo guriga uu ku nool yahay midda kale macallimiinta luqadda baraysaa dadka waxay ku hadlayaan af Soomaali bay ku hadlayaan oo luqadii dadkaasi ay fahmayeen ah khaasatan dadka waaweyn oo aan carabaabay oo ah shaqaalaha maxaan ku raahdaayay taxi drivers iyo truck drivers inkastoo shaqaalaha de ka mid yihiin iyaga waxaan khaas uga dhigay waqti la'aanta ma garanaysaa muxuu ahaaytoy waxa ka mid hooyooyinka oo inta badan ay ku adag tahay luqadaha kale inay ama qaarkoodba luqada kale wax ku soo barteen waxa ka mid naxwaha afka ama waxaynu luqadaha sheeyo ugu yeedhno grammarka waxa ka mid terminology-ga dadka loo isticmaalayo ama qofka wax lagu barayo micnaha waxa common ka oo qofku uu isticmaalo uu fahmayo dhaqankiisa ku jira waa in terminology-ga horta marka hore qofka laga dhisa oo uu rich ka noqdo dabadeedna taasi waxay u fahmaysaa u fududaynaysaa scope of communication kiisu in uu ku base garaysnaado dhaqankiisa dabadeedna uu barto dhaqanka uu markaa muxuu ahaayay ku dhexnool yahay muxuu ahaayay terminology ga laga isticmaalo scope of communication kiisa isna sidoo kale marka arinta awgeed ayaanu micnaha baanu u aragnay qofka u fududaynaya luqadda inay yihiin waxyaabaha aanuna ka caawin karno qof walibana bulshada meel baa kaga aadan waxaanu markaa ku talagalay meeshii bulshada nagaga aadanayd inaanu ka soo baxno anagu marka aan ka warramo barashada luqadda waxa weeyaan dad badan ayaa waxay isku dayaan inay dadka wax baraan oo maxaan ku raahday ka dhisaan luqadda ka dhisaan marka anagu waxyaabaha aanu muxuu ahaayay aanu u target garaynayno waxa kamid ah afar qaybood oo qofka bini aadanka ah luqadiisa lagu dhisi karo khaasatan ugu horeysa waxa weeye qofka bal horta luqadda uu baranayo naxwaheedii in laga dhiso ama waxa la yiraahdo grammarka in qofku uu fahmo waayo waxa weeyaan waxa la yiraahdaa ingiriisigu muxuu ahaayay waa kelmadana ilaa ay meel ku jirto oo ay micna sameynayso iyadoo oo micnaha functional ah ama shaqeynaysa waxa weeyaan ma oran kartid kelmadaasi micnahaas ay leedahay waa waxyaabaha micnaha dadku badanaa ay khalad ku kan waayo kelmadu 100 micno yeelan kartaa siyaabo badan baana loo isticmaali karaa waa kelmada kaliya wixii ka badanina de way ka duwan yihiin oo way ka duwan yihiin marka sidaa awgeed dadku waa in marka hore la baraa waxa la yiraahdo grammarka tan ku xigta waxa weeye in muxuu ahaayay qofka la baro conversational muxuu ahaayay speech inuu muxuu ahaayay uu qofku fahmo oo uu conversation ka dialogue understanding muxuu ahaayay uu leeyahay oo la baro sida sheekada la isu dhaafsado
sida laba qof iyo waxa ka badan ay u wada sheekaystaan sida muxuu ahaatay qof laba qof ay u sheekaystaan sida muxuu ahaatay koox dadihii ay u sheekaystaan in muxuu ahaatay la baro muxuu ahaatay conversationka in la baro qofkii tan ku xigta waxa weeye qofku in la baro waxa la yiraahdo comprehensional muxuu ahaatay skillska ama writing skillska qofku inuu su'aalihi ka jawaabo inuu sheeko akhristo oo su'aalaheedii ka soo bixiyo inuu muxuu ahaatay sida muxuu ahaatay loo jawaabo barto maxaan ku waxyaabahaas oo dhan in qofka la baro tan muhiimka ah oo badanaaba marka aad eegto wadamadan aynu ku noolnahay aad aan looga qiimayn una ah lafdhabarta luuqadda waxa weeyaan qofka in la baro waxa la yiraahdo kelmadaha cusub ama vocabulary-ga ama new wordska kuwaasoo ah muhiim waayo qofku haddaanu kelmado uu isku bedbedesho oo marba mid isticmaalo oo muxuu ahaayay enrichment ama ma garanaysaa awoodeyn ku samaysa luuqadiisii waxa adkaanaysa inuu awood u yeesho inuu intuu doono hadlo ama waqti dheer uu maaragtay conversation ku jiro ama muxuu ahaayay warqad muhiima ama sheeko muhiima inuu qoro ama muxuu ahaayay essay inuu ardaygu qoro ama muxuu ahaayay major paper jaamacadda lagaga rabo inuu qoro ama assignment loo soo diray inuu draft gareeyo isagoon plagiarism iyo magaranaysa dad kale hadalkii inuu soo dheegto aan muxuu ahaayay isku dayayn taasi marka waxay u fududaynaysaa inuu qofkii yeesho kalsooni uu kaga dhisan yahay dhinac walba qofka wax la barayo marka inta laga helo iskuulkii qofka wax la barayo waxa laga doonayaa 3 arimood inuu isagu muxuu ahaayay ku sameeyo muxuu ahaayay nuuxsi oo uu practice ku sameeyo ayaa looga baahan yahay waxa kamida inuu qofku wax akhriyo inuu garanaysa articles ka akhriyo inuu muxuu ahaayay buugaagta akhriyo inuu boorarka meelaha ku yaala akhriyo inuu ma garanaysa inuu la yimaado intention uu doonayo inuu wax ku akhriyo oo uu ku conquer gareeyo muxuu ahaayay skills of reading kiisi uu muxuu ahaayay ku hantiyo tan labaad waxa weeye inuu wax qoro qofkii midalan arday online wax ka baranaya weeye sida aan sheegay waxa weeyaan iminka waa la joojiyay macna correspondence-gii waraaqaha la isu soo diri jiray iyo buugaagta iyo la isu soo diri jiray muxuu ahaayay waxa moodaa inuu si yaraanayo waayo technological means-ka caalamku uu maanta isticmaalayo sidaan hadda u ognahay waxa weeyaan everything is set into globalization system marka technology is part of it and qaybta ugu weyn fududaysa waxyaabaha isku xidhka caalamka oo global village-ka loogu magacaabo waxa kamida technology-ga kamida marka iminka waxaanu anaguna uga faa'iideynaynaa bulshada Soomaaliyeed ama bulshooyinka kale ee u baahan inay luqadda aanu markaa wax ku barayno iskuulka bartaan ama Soomaaliga bartaan ama Ingiriisiga bartaan in ay u fududaato inay connected ahaadaan oo ay ku xidhnaadaan sida caalamku uu maanta waxbarashadiisii u hormariyay aan uga faa'iideyno marka arinta iyada ah ardayga waxa laga rabaa inuu wax qoro inuu wax akhriyo iyo inuu sameeyo waxa la yiraahdo conversational speaking oo uu la hadlo dadka ma garanaysa uu la nool yahay dadka shaqada uu la shaqeeyo dadka colleagueskiisa maxay saaxiibadiisa friendskiisa ma garanaysa markuu wax iibsanayo markuu muxuu ahaayay dukaamada tagayo markuu muxuu ahaayay taxi kareysanayo markuu cisbitaalka joogo markuu bangiga joogo inuu isku dayo isagoon baqayn waayo waxani waa wuxuu u baahan yahay waxaana ku xidhan noloshiisii inta uu wadankan muxuu ahaayay ku nool yahay joogo markaan ka hadlo heerarka luqadda dadku isku baahi maaha qaar baa waxay u baahan yihiin in wax walba looga soo bilaabo maxaan koray meesha ugu hooseysa badanaabana waxa la yiraahdo grassroots ka ama the ABC level dadka qaar waxa weeye xoogaa waxba u bilaaban laakiin waxba iskaga qasan oo waxa laga yaabaa in ay hadlaan maxaan ku raahdaayay oo formal muxuu ahaayay education hore male laakiin somehow luqadii way ku yar hadli karaan muxuu ahaayay dadka way yar fahmi karaan laakiin grammarkoodii iyo qoraalkoodii midna ma saxsana ama muxuu ahaayay they are not enriched in vocabulary oo new words koodii ma badna
laakiin way dadaalayaan oo ma garanaysaa way fahmayaan dadkiyo way shaqaysanayaano muxuu ahaaytay inkastoo de qofka uu la shaqaynaya uu fahmayo laakiin uu oranayo waa maxay qofkaasi sidoo u hadlayo taasi waa tan kale waxa weeye waa intermediate level dadka la yiraahdo waxba u bilaaban laakiin uma kala baxsana waxyaabo badan way ka dhiman yihiin tan saddexaad waxa weeye waa qof luqadii yaqaana formal school soo dhigtay laakiin doonaya inuu wax kororsado oo heerka dhexe ka tago oo uu gaaro advanced level ama waxa la yiraahdo heerka macadka ama institutional level ama university level oo kale marka qoladaasina muxuu ahaayay waa kuwa saddexaad oo iyagu u baahan inay micnaha luqadda successful ku noqdaan baahida ugu weyn muxuu ahaayay jirta na iskale iyagu sababtu waxa weeye waa ardayda jaamacadaha dhigata ardayda high school ka dhigata ardayda kolleejooyinka dhigata waxay u baahan yihiin iyagu in ay luqadii muxuu ahaayay scope of understanding koodu uu si fiican uu u noqdo micnaha mid foundation wanaagsan leh ama aasaas leh taasoo u fududaysa de wixii ay qorayaan ama assignmentigoodii ama major paperskoodii laga rabo oo ay submission ku sameynayaan online ku sameynayaan iyagoo aan plagiarism samayn waayo waynu ognahay ardayga marka major paper loo soo diray waxa leeyahay plagiarism is prohibited haddii aad lagugu ogaadana 0 marks baad helaysaa marka si taa looga taxadaro waxa weeyaan waa in ardaygii luqadiisii si wanaagsan loo dhisaa oo micnaha language construction kiisii muxuu ahaayay la dhameystira ama waxa la yiraahdo muxuu ahaayay lagu sameeyaa muxuu ahaayay muxuu ahaayay la dhameystira oo laga dhigaa mid barbilow iyo bardhamaad leh